kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal war degdeg oo ka yimid magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre lagala laabtay codka kalsoonida oo baarlamaanka Soomaaliya fadhi uu ku yeeshay xarunta golaha shacabka lagala laabtay codkii kalsoonida sida caadiga ah ajenduhu waxa uu ahaa si guud marka lagaga hadlayo qodob la xiriira arrinka doorashooyinka oo laga hadlayo laakiin waxaan la ogeyn waxa isku soo beegay xilka qaadista ra'iisul wasaare Khayre xukuumaddiisa iyo baarlamaanka Soomaaliya doodiisa iyo arrimahaas sida daraadeed ajendihii shalay baarlamaanka Soomaaliya loo diray in laga doodayo waxa uu ahaa ka doodista doorashada ama doorashada Soomaaliya la filayo 2020 inay Soomaaliya ka dhacayso sida daraadeed xildhibaan mahasaraad oo golaha shacabka ka tirsan aan la hadlay wuxuu ii sheegay in 170 xildhibaan oo golaha shacabka ay kalsoonida kala laabteen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre takalana dadku waxay aaminsan yihiin siyaasadda falanqeeya in arrinkan oo idil ay gadaal ka riixayaan mas'uuliyiinta ugu sareysa fila Soomaaliya sida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama markii lagu soo wada hadlay xarunta galmudug ee Dhuusamareeb uu madaxweynuhu 2 toddobaad soo qaatay sida daraadeedna uu yiri waxaan la imaan doonaa toddobaadyada kale ama toddobaadka dambe ee la shiri doono in baarlamaanka Soomaaliya aan rahdeen doorashada Soomaaliya wiji ay yeelato sida daraadeed dadku waxay isweydiinayaan waxa isku soo beegay arrimahan aad ka adag ee maanta ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya iyo doonista madaxweyne Farmaajo ee muddo kordhin iyo wixii la mid iyo doorashada cidda ceeb inay maartay ku tahay in la qaban waayo guud ahaan sida daraadeed xildhibaan Xasan Yare oo ka tirsan golaha shacabka diidanna waa hadee si kala u taqaan xildhibaan Xasan Firimbi oo ka tirsan golaha shacabka diidanna qaabka ay u dhacday arrinka la xiriira doorashadaas aan raadeen kalsooni kala laabashada xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre ayaa khadka si toos iminka ugu jira dadka ku dhageysanaya oo gaaraya ilaa 2400 qofood korna u sii kordhaya la hadal oo ku soo dhawow xildhibaan Xasan Yare maasantii dhageystayaasha aad bay u mahadsan yihiin xalay waxaan loo soo diray SMS baarlamaanka leeyahay وهاجد هاي waqtiga nagu noqotay ama kaag sababtoo ah markii baarlamaanka procedure ku shaqeeya jira marka jadal la soo diray waxa fariistay guddiga joogtada ah guddiga joogtada waxa la marsiinay oo ka soo dooda ajendayaasha muhiimada leh xaaladaha siyaasadeed waddanka isku jira kala ku jira baarlamaanka mudahaleedkiisa waxa uu haray 3 bilood oo u dhacaya November uu ku egyahay markaan imaanay waxaan u bedelay in arrinta la soo bandhigay ka doonista doorashada inuu soo ajendaha yahay inay tahay ra'iisul xukuumadda markii la reebayana anigu mucaarada waqtigiin procedure loo maray leedahay waxa la isku soo xiray xalay iyo shalay iyo ayaa jiray oo madaxtooyada iyo laga shaqeynayay madaxweynaha Soomaaliya ka shaqeynaya filayo markaan imaanay baarlamaanka la soo fadhiistay xildhibaanada waxa uu tagay guddoonka waxa laga hadlayo waxay yihiin doorashada laga hadlayo maxay tahay maalinta Xaliim Yare ee soo bandhigtay waa laga hadlayaa oo ay codsatay 13 bilood iyo ay codsatay ma laga hadlayaa waxa laga hadlayaa shirkadda Dhuusamareeb wixii maamul goboleed federaalka ku soo heshiiyeen waxa laga hadlayaa idima sheegayo waxa laga hadlayaa haddana loo sheegay samaysoo tagnaawa meesha waa isku buuqay baarlamaanka la soo fadhiistay warqad baa u qorneed guddoonka baarlamaanka tira ay ku qoran tahay 170 xildhibaan iyaga jaakooda ay ka qorteen muqaraafka qabsadeen xildhibaanada diidanaa meesha istaagan waxa ajendaha la caday doodda adeenta golaha shacabka oo laga doodayo doorashada laga doodayo maxay tahay model iska hadda laga hadlayo ee fikirka uu soo balansan yahay ma doorashadii Xaliim Yare ee keentay waqtiga cusubtay ma dhici kartay tirsan iyo xoolo baan laba sano ee dhacday oo laga doodayo haye diidan ka hadlaan oo guddoonku aan soo gaaray ayuu ahaa guddoonka labaad oo maqnaa marka buuq uu batayna gudoomiyaha wuxuu yiri 170 way riday xukuumadda ka soo kala laabatay xukuumadda way dhacday wuu iska baxay marka sida aaminsan tahay sharci ma ahayn wadada loo maray xukuumadda in maaragtay la rido waxa la keenaa procedure ra'iisul wasaare markii laga keenayo mooshin 50 xildhibaan baa soo saxiixda wax kabadka ku fashilantay waa la keenaa dood baa la geliyaa 2 bari 3 bari ra'iisul wasaaraha loo yeero xukuumadda la hor keenaa baarlamaanka su'aalaha la weydiiyaa wuxuu ku fashilmay markii waxa la kalsoonaa loo qaado iyadoo ma nadiif ah lagu kala baxay gacanta lagu kala baxay qofka saga buu ku dhacaa laakiin wax procedure la maray malaha muqaraafku qabsaday uu dhacay ilaa ka baxay waa sharci daradii soo socotay joogtada waxaan oo wax ka sii daran saala socotaan golaha shacabka aan ka tirsannahay ilaa wada aqal waxay wada ansixiyeen sharci doorasho
qof iyo cod ah oo 4.5 oo khilaaf uu ka jiray doorashada iyada ahayd la isku haystayna aqalka sare iyo golaha shacabka way isku dhaceen markay isku dhaceen aqalka sare walaaqay ay gudiyada ay soo diyaariyeen oo ahaa laba aqal oo fadhiisayna xaliimiyada ay maato dood hadii baarlamaanka laga dooday laba aqal oo fadhiinay ka doodaan hadii ay duruuf ku qabso xildhibaanka qadka ay ka gogo'aya sida daraadeed haye waxa loo yaqaan resolution ama qaraaraad iyadoo sharci darraas ay taagan tahay waxa la modificationayo oo baa asaas loo rogaya ayaa maanta waxa ku darsantay way dhacday weligeed ma dhicin Soomaaliya kama dhicin xukuumadan la horkeena baarlamaanka wax qabadkeeda lagu eedeeyay kontar shan xildhibaan booshin inay ka keenin booshin lama keenin lama soo bandhigin ra'iisul wasaare loo yeerin su'aal lama weydiinin uu dhacay baliin waxaan u maleynayaa guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada isla wateen ay wax sharci ama wax dadku qofsana maaha wax u codeeyeen ma jiraan waa been cid ku dhaaway codeysay iyadoo waa daawan kartaa iska buuq way ahayd meesha hadda marka maadaama aad joogtay fadhigii golaha shacabka oo aad ka mid ahayd xildhibaanadii goobta joogay wax gacantaaga ama wax codtirina oo la sameeyay ma jiraan miya wax codtirina ay wax gacantaaga la sameeyay malaha waayahay xildhibaan uu dhacay baa la lahayn oo isku buuqaday yar la soo diyaariyay kuwan wakiilana ma dhicin bay lahayn ma salaam saas lagu kala tag saas wax loo procedure noocaas ma ahayn ku sheegay ra'iisul wasaare xukuumadda ridayo waa in mooshin la keen sida aan ognahay xildhibaane markii laga soo tagay meesha la yiraahdo Samareeb oo xamar lagu soo laabtay dadka siyaasadda u dhuun duleela iyo wariyaashu waxay xogaha ay helayaan ay tilmaamayaan in madaxweynuhu yiri labada toddobaad ee lagu soo laabanayo Samareeb waxaan la iman doonaa xal doorasho xalka doorasho wuxuu noqday in xukuumadda sidaas sheegayso qaab aan sharci ahayn lagu rido halka doorasho waxa way extension hada meesha waxa la waa dheereys goboleedyada xagga joogay dheereys weydiiday baad aan sharciyan doorasho kuma dhici karta xaliimire waa sheegtay oo 13 bilood oo baahanahay wadankan 4 sano waa la isdoortaa doorashadii 2016 wixii lagu dari karo oo lagu qurxin karo tirada dadka la zaaidiyo oo la kordhiyo waxay dhici karaan qabanno san amniga dalka iyo laga sii wadanka loo ilaaliyo waayahay uu yiri markuu arrintii soo dhameeyay waan ka hadlaynaa uu dhahay baarlamaanka ka soo qancinaya howlba soo waxa soo dhahay laakiin waxa uu qarsoona waxay ahayd uu dhacay iska dhaxoon fooda iska noqoto meesha waxa ka cad in hadda la raadinayo hadii ra'iisul wasaaraha iyo khalaasa siyaasadeed wadanka galaad aqal sargooni uu fadhiyaa xukuumadda way dhacday weelada ra'iisul wasaaraha wuxuu sameyn doonaa anaga ma garanayno dowladda gooni uu fadhiyaan heshiis baa jira dowladda soo qoran waraaqo oo ay ku soo magacaabeen wakiiladii Soomaaliyana waa dowlad bixinaha ka imaatay meel fog oo xasiloon siyaasadeed u baahan waayahay haye xildhibaanka codkiisa si wanaagsan aad u maqlina laga yaabaa sababtoo ah internetka xoga xaggiisa ayay cilad ka taagan tahay xildhibaan codkaaga naga gogo'aya waana mahadsantahay haye waayahay marka haddii inta sida aad sheegayso qaab fawda inta baarlamaankii loo dhex tagay gaar ahaan golaha shacabka oo la yiri xukuumaddii waa la riday maxaa diidaya inta fadhina la yeesho berri dambe ay xildhibaano kalena yiraahdaan madaxweynaha riday maxaa diidaya wax diidaya malaha inay fadhiistaan baa laga yaabaa u dhacay dhaxan laga yaabaa wax diidaya malaha guddoonka u dhacay laga yaabaa doorkan berri karaasoo iska dhacay u dhacay iska soconaysa tagaas wadan ku dhamaanaya halku muxuu ku jiraa marka si waqtiga maxaan ku dhahaa wallahi wadankan aad baan uga muraajabsanahay wadadu qaaday dastuurkii sharciga aan ilaalinaynin foodo wadanka ka socota wadanka qalaaso weyn ayuu ku jiraa xilli kale guurna uu marayaa dowladda hadda jirta madaxweyne farmaajo hogaaminayna doorasho ma rabto dheereysi way rabtaa dheereysigana sidan bay rabtaa inuu ku aado waxaan u aragtay in ra'iisul wasaarihi foodo ugu bixin karo sababtoo ah procedure rasmi lama siin karaa ra'iisul wasaaraha waxa la yaabaa in xildhibaano badan iyo dadka xildhibaano badan oo Soomaali oo hataa aan dawladda taageersaneen in ayagu u arkay wadanka xasiloonaysa inay diidi lahaayeen laakiin waxa fawdo loo sameeyay uu dhacay isaga dhahay inaan cod la heli karin baa taas ayaana keentay ra'iisul wasaarayaal hore sidaan oo kale xilalka looga qaaday baarlamaanka iyagoo dhex istaago dhahay waa la hadlaynaa hortooda ayaa la kala tuuray howlahan oo kale way dhici jireen marka in muddo kororsi la sameeyay in khayre xukuumaddiisa kalsooni lagala laabto farqiga u dhaxay waa maxay fahamsiin dadka halkaas waxa u dhaxay malaha dawladda waxa u haraan fadhiya baarlamaanka 3 bilood ra'iisul wasaare cusub la soo magacaabay hadii la dhaho wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare cusub la soo magacaabo waqti ay qaadani xukuumaddu soo dhiso xukuumaddu ku soo dhiso baarlamaanka la geeyo kalsooni la siiyo intaas waxay qaadanaysaa dhowr biloodba marka waa procedure dheer oo aan dhaweyn ay noqonaysaa marka waa extension oo la sii socdo marka extension ra'iisul wasaare cusub shaqo uu qabtaa la rabaa shaqo uu qabanay laba sano ka hor kuma qaban karo
waayahay waxaan sugi doonaa waa qaybta iyo aqalka sare kaalintiisa ku aadan bal hadba sida ay wax u soconayaan ayaan halkan idinkaga soo gudbin doonaa mar kale haddaan daawadayaal idinkoo mahadsan oo waqtigiinan aan idinkaga mahad celinayno aan idinkugu celiyo ajandihii baarlamaanka Soomaaliya inuu ka doodo maanta loo diray waxay ahayd ka doodista doorashada saacadda la balmiyana waxay ahayd 9 subaxnimo ama 3 saac subaxnimo haddii aad koonfurta joogto sida u taqaano sida daraadeed mar dambe waraa soo baxay warkaasina wuxuu lahaa waxa fawdo wada si wasiirka uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka uu baarlamaanka hortiisa ka yiri wasiirka amniga Islow Ducaale wasiirka dawladda gaadiidka oo lagu magacaabo Cismaan Daalo wasiirka xigeenka warfaafinta Aadan Isaaq xildhibaan Mustafa Dhuxulow iyo xildhibaan Xuseen Iidow oo baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha golaha shacabka uu yiri waxay wadaan fawdo iyo inuu kulan ku furmo sida daraadeed mar dambe war degdeg ah oo aan ka helnay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka lagu magacaabo Mahad Salaad wuxuu ku yiri 170 xildhibaan oo golaha shacabka Soomaaliya ka tirsan ayaa kalsoonidii xukuumadnimo kala laabatay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre laakiin dadka siyaasadda oo darasa iyo dadka guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya la socda waxay leeyihiin suuragal ma ahan oo madaxweynaha Soomaaliya ayaa markii uu ka soo tagay magaalada Dhuusamareeb waxa uu ballan ku soo qaaday in uu la imaan doono qorshe marka laga hadlayo in loo laabto 2 toddobaad kadib maadaama 15 Agost lagu balansan yahay in la isugu tago Dhuusamareeb oo doorasho laga heshiiyo laakiin dadka sida weyn ugu dhundulal siyaasaddu waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu rabay inuu abuuro xaalad kale oo siyaasadeed iyo jawi kale in la galo maadaama xaalad deganaana lagu soo kala tagay oo baarlamaanka Soomaaliya ay ku qanceen in maamul waa qayb kamid ah marka la eego inay ku qanceen baarlamaanka Soomaaliya inay ku qanceen in qayb kamid ah wixii dhacay ka soo baxay Dhuusamareeb ay yiraahdeen waan aqbalsanahay qaybina oo uu kamid yahay gudoomiyaha golaha shacabka oo siyaasiyiin badan aaminsan yihiin ku daaban madaxweyne Farmaajo uu yiri waxba kama jiraan iyo wixii la mid ah aqalka sare ayaa gaar u aamusan oo isaguna xanaaqsan oo dusha sare ka eeganaya waxa socda inkastoo ilaa iminka aan wax cod laga haynin laakiin waxaan idin ballan qaadayaa hadba qofka mudan ee ay tahay in codkiisa la maqlo Allah ka dhigay xitaa ra'iisul wasaaraha baarlamaanka qaybtiisu tiri waxaan kala laabanay kalsoonida inaan idin maqashiyo codkiisa iyo bal kaalinta ku aadan aqbalida iyo diidmada sida daraadeed in xukuumadda xilligan la rido ayaa siyaasadda Soomaaliya intii ay jirtay xilligan oo kale ma aysan dhicin in iyadoo muddo xilhayntu ay ka dhiman tahay intaan waqtigan marka la eego gaabka jiro oo kale bilaha ayaan ka hadlayaa ma aysan dhicin inay sidaan oo kale dhacdo waxaan u mahad celinayaa xildhibaan Xasan Yare oo aad u garan ogtahay xildhibaan Xasan Firimbi oo nagala qayb qaatay barnaamijka adinkuna waxaad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararka aan soo gelino waxaad bartan ay idin ballan qaadaysaa inaad markasta heshaan wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda oo maanta iyo maalmaha soo socdaba aad moodo inay maaragtay ka sii darayso ama ka sii karkarayso sida daraadeed daawadayaal adinkuna saaxiibadiina la sii wadaaga muuqaalkan si ay maaragtay update uga noqdaan waxa socda iyo xaaladaha guud ee dalka maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa diiday sida xildhibaanku noo sheegay waa markii madaxda maamul goboleedyada dhankooda la eegay in ay aqbalaan in doorasho qof iyo cod dalkan ay ka dhacdo maadaama aan waqtigeeda loo joogin waxay ku doodayaan in madaxweynuhu uusan markii horeba shaqo loo baahnaa uusan qaban sida daraadeed hadii waqti loogu daro uusan waxba qaban karin guddigii qaabilsanaa arrimaha doorashooyinka ayaa iyaguna dhan kale ka cartamaya oo leh doorasho waa qaban karnaa iyo bilo kale u baahanahay mucaaradku waxay u arkaan in muddo kororsi tahay sida daraadeed wixii soo kordha halkan kala soco daawashada ayaad ku mahadsantihiin nabadgelyo maalin